waxaa jiray wiil yar oo la odhan jiray Cabdi. Wuxuu ahaa wiil firfircoon, qosol badan, laakiin hal dabeecad ayuu lahaa: ma jeclayn dugsiga. Maalin kasta markay saacadda dugsiga gaarto, hooyadiis ayaa si deggan u odhan jirtay, Cabdiyow, soo toos wiilkaygii, waa wakhtigii dugsiga. Laakiin Cabdi mar kasta wuxuu odhan jiray, hooyo, maanta waan daalanahay, beri ayaan tegayaa. Hooyadiis waxay u fiirin jirtay si naxariis leh, iyadoo odhan jirtay, wiilkaygiyow, aqoontu waa iftiin. Qofka wax barta mustaqbal fiican ayuu helaa. Laakiin Cabdi wuu qosli jiray oo wuu ka baxsan jiray si uu kubbad u ciyaaro. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo kubbad ku ciyaaraya bannaanka, ayaa kubaddii meel fog u duushay. Markuu u orday si uu u soo qaato, wuxuu arkay buug duug ah oo yaalla geed hoostiisa. Wuxuu qabtay buugga isagoo yaaban, wuxuuna arkay in dusha lagu qoray, buugga sirta aqoonta, qof kasta oo akhriya wuu iftiimaa. Cabdi si xiiso leh ayuu u furay buugga. Markuu boggii hore akhriyey, waxaa indhihiisa ka hor iftiimay midabyo iyo sawirro qurux badan. Wuxuu bilaabay inuu si fudud u fahmo waxyaabo uu horay u necbanaa, sida xisaabta iyo akhriska. Wuu la yaabay, wuxuuna yidhi, waa maxay sirtaan? Muxuu buuggan iiga dhigay inaan fahmo wax kasta? Maalintaas kadib, Cabdi wuxuu go'aansaday inuu maalin kasta wax akhriyo. Wuxuu jeclaystay buuggaas, wuxuuna bartay inuu akhriska ka dhigto caado. Maalmo yar kadib, wax walba way isbeddeleen. Cabdi wuxuu noqday ardayga ugu fiican fasalka. Macallinkiisii iyo asxaabtiisii way la yaabeen sida uu isu beddelay. Hooyadiisna waxay tidhi iyadoo faraxsan, waad aragtay miyaa, wiilkaygiiyow? Aqoontu waa iftiin, buugguna waa saaxiibka ugu fiican. Cabdi wuu qoslay, wuxuuna ku jawaabay, haa hooyo, hadda waan ogaaday. Buug kasta waa buug sir leh, sirta aqoonta. Intaas kadib waxaynu arkaynaa in Cabdi uu jeclaaday wax akhriska iyo waxbarashada.